tirada bini'aadamka ee ku nool dunidan ayaa aad u soo badanaya tan bilowgii qarnigii 21aad xilli wadamada qaar ay dadkooda gaareen 1 bilyan oo ruux halka taagsigeeda ay jiraan wadamo badan oo diirhayso dhulkoodana inta ugu badan uu banaayahay waxaan rabaa inaan kaga jawaabo dhammaan su'aalahan waa imisa tirada dadka ee ku nool dunida waqtigan todobada wadan ee ugu dadka badan caalamka rag iyo dumarka yaaban kuwa aan labadaba ahayn tiradooda imisa ayaa lagu sheegaa balse intaan kula wadaagin xogtaan aan ku weydiisto inaad igu dhiirigeliso laagay flow muuqaalkana aad shargareyso si dad badan uu gaaro ma jiro tiro rasmi ah oo la soo saaro balse waxaa jira qiyaas lagu ogaaday tirada bini'aadamka ee ku nool adduunkan iyo magaalo qiimeyntii ugu dambeysay oo ay qaramada midooba sameysay bishii July 11keedii waxa ay ku sheegeen in tirada bini'aadamka ee hadda adduunkan ku nool ay gaareen 7.7 bilyan oo ruux waxaana sidoo kale ay sheegeen in 2050 dadka dunidan ku nool ay gaari doonaan ilaa 10 bilyan oo ruux dadka ugu badan caalamka waxa ay ku nool yihiin 10 wadan balse 5 ka mid ah wadamadaas waa qaaradda ugu weyn adduunka ee Aasiya waa kuwan liiska wadamada ay dadka ugu badan ku nool yihiin China, Hindiya, Mareykanka, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Ruushka iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Mexico ayaa loo arkaa wadamada ugu badan ee bini'aadamka ay ku nool yihiin balse Shiinaha ayaa noqday kaalinta koowaad waxaana dadka ku nool ay kor u dhaafeen 1.4 bilyan oo ruux dawladda Shiinaha ayaa sameysay waxyaabo badan ay uga hortagayso dhalmada sidaa darteed wadanka Hindiya ayaa loo maleynayaa inuu noqon doono wadanka ugu dadka badan caalamka sanadaha soo aadan qaaradda Afrika dadka ku nool qaaradan waxa ay ka badan yihiin 1.3 bilyan oo ruux wadanka Nigeria ayaana ah kan ugu dadka badan ee qaaradda Afrika carruurta ku dhalata qaybta mataanaha ayaa ka badan 3 ruux taas ayaan u sahashay Nigeria inay noqdaan wadanka ugu dadka badan qaaradan sidoo kale waxaa jira wadamo soo koraya waxaana qaybka Ethiopia iyo wadanka Tanzania qaaradda Afrika waa tan ay ku nool yihiin dhalinyarada ugu badan caalamka sidoo kale waa qaaradda ugu kheyraadka fiican adduunka balse dad ka soo jeeda qaaradan ayaa loo mashquuliyay siyaabooyin kala duwan qaaradda Yurub waa tan ugu cimriga badan adduunka balse waxay ku jiraan booska saddexaad ee sheekadan waxaana ku nool 720 milyan oo ruux dadka ugu badan waxay ku nool yihiin wadanka Ruushka sidoo kale waxaa jira wadamo dhulka qani ka ah balse idad la'aan ka jirto waxaana boos koowaad ka galay wadanka lagu magacaabo Mongolia in ka badan 1 milyan oo laba jibaaran ayuu dhulkooda ka kooban yahay waxaana ku nool oo kaliya 3 milyan oo ruux wadamada kale waxaa ka mid ah Namibia, Australia, Iceland, Suriname wadanka la yiraahdo sidoo kale waxaa jira wadamo ay dumarku ku badan yihiin Nepal, Portugal, Lithuania, El Salvador, Ukraine, Russia, Armenia, Belarus iyo wadamo kale oo caalam ka mid ah ayaa loo arkaa in dumarku ay ku badan yihiin taa beddelkeeda waxaa jira dal ay rag ku badan yihiin waxaana ka mid ah wadanka Qatar, United Arab, Oman, Bahrain, Djibouti, Saudi Arabia, Ecuador, Guinea iyo wadanka Kuwait wadanka aan ka soo jeednay Soomaaliya waxa uu caalamku ku qiimeeyaa wadamada ay dumarku ku badan yihiin boqolkiiba 56 ayaa loo arkaa inay dumar yihiin halka inta soo hartay rag lagu sheego gudaana muuqaalkeena waa naga inta ee aan ka codsada mar kale inaad page-ka follow iyo like dhahdo muuqaalkan aad u shargareyso saaxiibada si dad badan ay u daawadaan